lalama sheekaysto markaad tahay shukaansi iyo sheeko iyo haasaabo aad aadaydo lalama sheekaysto dumar saddexdan kamid ah saddexdu maxay kala yihiin midka koobaad 15 jir lalama sheekaysto 15 jir markaan ku dhaho waa gabadha yar oo shukaansi bilaawa oo 15 jirka ama dugsiga loo soo diray ama iskuulka loo soo diray ama cajiinka ama hooyo adeega u soo dirsatay meelaha inta ku qabatid marka sheekada u bilowdo oo la sheekaysamaagto قد استراهدو gabadhan si fiican u shukaanso oo ula sheekaysatay ilaan waaye badan ayaa dul maraysay oo korka haabeeyday ayaa isla heeday gabadhan mar uun mahashaa oo ma la sheekaysata oo ma qabata maalin maalmaha kamida ayay luuqaaga soo baxday ayadoo 15 jir ah markaad qabato oo sheekadii aad u wado cabaar markay sheekada dhax ku maraydo waxay arkaysaa qof ay aqaan jirtay isdhihi meeydu wajiga dadbe uf naga tag maxaa noo sheegay ay ku leedahay sidii nin maanta dhal la dagaashanay lama aadan dagaashanayne shukaansiga ayaaba sida ka sababtay tahay waa cunug yar waa shukaansi bilow garaadkeeda iyo awoodeedaba ma aysan gaarin inay wax shukaansato adiguna maalmahan dhan ayaad ilaalinayday oo waxaad isla heeday yartaan dheer oo quruxda badan leh oo wanaaga badan leh haddaad hal mar qaban lahayd beelay ahaan lahayd maxaa beel ahaan lahayd qaban lahayd cunugta dhirirkeeda iyo muuqeeda ayaad u jeedaa hooyo aabba wax soo siistay maahana dhaldhalaalka iyo quruxda uma aysa keenin weynin da'deeda aad ayay u yar tahay ama waa 13 jir ama waa 14 jir ama da'da 15 aad ay ku jirtaa maxay shukaansi xafdisaa hooyada cajiinka markii u soo dirto luuqa markaad ku qabato waxay arkaysaa halkaas qofkii oo diriskeeda ahay ama walaalkii ama waalidkii ama ehelkii ama asxaabteedii dad kamid ama waalidkeeda dad yaqaan markaas inta isku ka badasho ayay dagaal ku siisaa dhagaxay inta soo qabsato ayay soo tuuriyootantaa markaas ay ku tira naga tag muxuu noo sheegay muxuu na dhahay bah dagaal ay kugu bilowdo waxaad isleedahay gabadha hoosteeda ayaa ka dhashay waxaadan adiga arag ayay u jeedaa waxaadan fahmaynin ayay fahmaysaa sababta ay tahay waxay ka cabsanaysaa hadhow inii waalidkeed lagu diro oo la yiraahdo gabadhiina xagga ayay wiil la taagneeday sababta ay tahay amal iyo xanaag iyo qaylo waxay kaaga wadaa shukaansiga naftirkiisiba waaba sheekada shukaansiga aheed qayladii markii ay kugu waxayso qofkii ay gudubto ee kuleeda ani waxaan arkay eedadeeya xagga maraysa adeera xagga ka soo baxay aboowa meesha soo maray cunugan dugsiga isla dhiganayna arkay inta soo dhan shukaansiga ay ka tahay 15 jir shukaansigeeda sidaas weeye intaad hadhow adoo candhuufaysan ama daqran ama caayan haday rabto xataa kab ay kugu dhufatay hadhow adoo si wax ka ah markaad la gadoomi lahayd oo gabadha ka xanaaji lahayd oo intaad darbaaxsho u dhiibtay xilli xoolo laga xiran lahaa 15 jir shukaansigeeda iska ilaali oo u foojignaawo gabadha maskaxdeeda iyo qalbigeeda horta miisaan ku sameey oo markay miisaan iyo qalbi ay leedahay oo istira 15 jir shukaansi u qalmo waay markaas la sheekayso shukaanso 15 jir maskax ilmeed leh ha kuguma ogi wiilow waa iga dardaarma ama odayow ama dhalinyarow inta dinta doontaba ahaa midda labaad shandal markaan ku iraaho waa naag 5 cunug dhashay waa garoob 5 daaday ay haysataa mid waxa laga yaabaa 5 tuba inay kala weyn yihiin wax yaroon badnayn ay sanad ama laba sano waxaan isla dhamayn ay kala weyn yihiin waxay ku leedahay ima waa wada sheekaysanaynaay aawad u imaanaysa markaad u imaado oo meel wada fariisatiin ayaa cunugii ooyaya markuu ooyay waxay ku leedahay hebelow waa soo aamusinaya cunugii u tagaysa way soo aamusinay cabaaray soo haynaysa way soo laabanaysa maxaad buu sheegtaba meeshiyaad ka soo bilaabaysa waxay ku leedahay hadaaya maxay tiri maba ogeynine meeshiyaad hadana ka soo bilaabay 2 daqiiqo ka bacdi kii kala ooyay way ka aadaysa maanta dhan 5 cunug heesmadoodii ayaad ku jirtaa shukaansigaad soo aada aaway wareer iyo stress iyo buuq iyo nolosha aad u baahneed adoona gaarin ayaad gurigaaga aadaysa shandal shukaansigeeduna sidaas weeye hala yaabin ubadkaas hadaad u sabarto oo dul qaadato oo waxba u arag oo ilmahaaga ka soo qaado awoodaadii heerkaaga waad gaaraysaa laakiin hadii aad xanaagto oo amal iyo xanaag aad isku darto adigana maalin kasto garoob shandal baad raadisaa shukaansigaagana wuu qabyooba odayow ama wiilow shandal waa gabar wanaagsan oo fiican oo ilmo leh oo caruur leh waa lagu faanaa
oo sababtay tahay anigu ma diidaayo garoob shandhale laakiin shukaansigeeda ayaan kuu sheegayaa in yar ka bacdi adiguna waad inaad sabar iyo dulqaad aad u yeelataa ood cashirka caawa dhan aad ugu soo celcelida aad maanta dhan u sheegayday wiilow dhibaato kale ma lahan ceeb kalena ma lahane xataa haddii aad guursato ood guriga joogtiin waxay ku leedahay cunugiyaa ooye waa inaad cunugaaga camal ka soo qaado ood sabar iyo dulqaad u yeelato haddii aad xanaagaydo ama aad waxay haydo hadda waxaad iska raadsataa boosaska bannaanka sababtay tahay waxaa jiraan maamooyin xoogay dhaqma ka taga intaasna waa kaftan asxaab midda saddexaad oo ahna midda ugu dambayso haddii aan ku dhaw maxaa iga sugaysaa waa shahley naagta shahley markay tahay maxay tahay waa naagta shaaha kariso maanta dhan midka yar oo u imaado uu shukaansana midka weyn oo u imaado uu shukaansana odaga cirrada uu shukaansana koobka shaaha waxay uga gadataa nimanka shukaansi haddii aan kaaga sheekeeyo ilaa ninka aysan u qoslin aysan u sheekayn shaahba ka cabi maayo mid walba wuxuu isleeyahay kaasi haddaay u sheekeeyo oo u qoslay ee ama micnaha asiga kaa aadaa sheekada sheeka ka fiican uga sheekay kii kale u tagtaa mid ka sii fiican meeshaas waxay ka qaadataa xigmad iyo awood badan sababta ay tahay shukaansiga ayada kala nuuca xigmad iyo awood bay ku helaysaa iyo ilbaxya waaye aragnimo adiguna wuxuu kaa yahay midaan xigmad iyo awood ku soo aruuriyo shukaansigii u sheekay ayada dan kale shukaansigaas ka malahane koobka shaaha ay ku iibsataa waxaadna ogaataa shaaley way kaa lacag badan tahay nin walba markuu koobka shaaha lacagtiisa u tuuraay 2 iyo 3 kale u tuuraa sababtay tahay shukaansigeeda dhanba waa intaas karay shaaha u shubay adigii hadda kaa tagay koobka shaaha intay kugula qoslayso mid kale u tagay shaaha u shubay way la qosloosa way shukaansanoosa sabar iyo dulqaad inaa u yeelataa la rabaa naagta shaahleyda maahane haddii aad tiraaho shaahleyaan shukaansana gafuurkaana tuura odayow ama wiilow ama dhalinyaro waad ku dhimanaysaa naagta shaahleyda waa shirka haddii aan kuu sheegano qof walba oo koobka shaaha ay u shubayso tarmuuska 7 koob ku jirto 7daas koobna 7 nin ay ku shukaansanaysa kan kale 7 ku jirto caawa inta tarmuus ay shubto inta bakeeriyo ku jirto inta nin ay u shubtaa ay shukaansanaysa adigana waxaad ogaataa intaas ayaad mid ka tahay adkaysimadeeda iyo awoodeeda inaad yeelato haddii aadan yeelan karin wiilow shaahley ha u masayrin looma masayra gabadha shaahleyda ilaan danteeda iyo awoodeeda ayay ku wadataa haddii ay markaas ay iska aamusto ama isxirxirto taas shaah kama doonanayne maxay noo sheegayhaa la leeyahay laakiin shukaansi shaahley shaahow ku xiran yahay iyo bakeeriga shaaha wiilow adoo dulqaad iyo sabar leh gabadha shaahleyda u tag ama adoo daciifa oo dhahayso aniga shalaan taas shaah ka cabo nin kale u sheekaynayso ha iskugu tagin shukaansiga shaahleyda shirka waaye haddaan kuu sheego gabdhaha shaahleyda shukaansigooda shirka waaye koobka shaaha iyo ninka shukaansigiisa waa iskugu seen miseerlow haddaa tahay ama gafuurtuur aad tahay gabadha shaahleyda waa kuu sheegaya ha u tagin kasraageed oo kadaloobra kaaga dambeeyo kaa ku ogeed maahan haddaba ogaaw